بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 251 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتصحرين. رواه أحمد والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تهاي 14 بشي ساقالات رمضان سنة كون 440 يكو إسلام كان وافقسان تضبضي بشي شنات سنة لبضا كون يلباتنك waxaanu ku jiray mawduuceennii qiimaha badnaa ee ku saabsanaa axaadiistii ramadaanka oo anwaac kala duwan, mar aan fadaaisha aan ka hadalno iyo mar aanu ka hadalnay waxyaabaha ramadaanka aana burinaynin iyo waxyaabaha burinhaya iyo dadka ramadaanka cudurdaarka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo afuri kara ee u bannaan tahay, iyo qofka ramadaanka afura oona soomin ama afuritaanka waktigii aan loogu talagelin afura ciqaabta iyo dhibaatadu la kulmayo. saaka waxaan qaadanaynaa qayb ka duwan baanu fiirinayna oo isla ramadaankii ah, oo waxa la yihahda aadaabu ramadaan ama sunnooyinka iyo sida fiican ee qofka muslimka la rabo inuu ramadaanka uu ku ilaaliyo oo uu sameeyo. waxaa sunanka ramadaanka ka mida iyo howlaha aada u qiimo badan suxuurta ka mida. nabigeena calayhi salaatu wasalaam abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu waardahba wuxuu leeyahay, rasuulku wuxuu yidhi: asaxuuru suxuurtu akluhu cunitaankiisu barakatun waa barako, falaa tadacuuhu ha ka tegina, walow an yajraca haba ka badaba axadukum axadkiin jarcatan ka basho oo min maa'in biyo ah, fa ina allaha iyo wamalaa'ikatahu yusalluuna waxay ku salinhayaan cala almutasaxiriina kuwa suxuuranaya, iyo ilaah iyo malaa'igtiisa ku salinhayaan. xadiidka axmed baa soo saaray, waa xadiid xasana. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidku waa xadiid xasana. xasan sheekh albani raxmatullahi caleyh wuu xasaniyey, wain kaana fiihi kalaam, bacd alculamaana way ka hadleen, laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay. shawaahid buu leeyahayo waxaa shaahidiisa ka mid a alimaamu dabaraani kitaabkiisa awsadka wuu ku soo saarahayaa, kadalika ibnu xibaan saxiixiisa iyo keyrkoodba min xadiidi ibni cumar, cabdullahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhuma wa ardaa, ayaa wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam: ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin. juz'iyadaas waxuu soo saarahayaa dabaraani awsadkiisa iyo ibnu xibaan saxiixiisa. idan shaahid bay u noqonaysaa xadiidkan hadda aanu qaadanayno, iyo maaragtay qaybo kala duwan buu leehay. idan xadiidka markii lasoo ururiyo, qaybtan hadda aan inagu qaadanayno sheekh albani raxmatullahi caleyh xasan buu kaga dhigay saxiixu jaamicu sagiir raqamka xadiidka 3683. qaybtaa kale hadda akrinayna ee dabaraani soo saarayna, oo in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin, saxiixu tarkiib watarhiib ayuu saxiix kaga dhigayaa. isla xadiidkeenana saxiixu tarkiib watarhiib isna xasan buu kaga dhigayaa raqamka xadiidka 1070. isku soo ururiya xadiidku waa xadiid sugan wey. xadiidku marka muxuu noo cadaynayaa? wuxuu noo cadaynayaa fadaaisha iyo qiimaha ay leedahay suxuurta. suxuurta wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, cunitaankeedu waa barako, ha ka tegina marnaba, walow axadkiin haba ka badaba jarca oo min maa, biyo af maartay hal cantuugoo biyaa ama hal ka bashoo biyaa. ikhwatii filla, maxaa yeelay ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa ku salinhaya qofka suxuurta. waanu u iman doonaa salaada ilaahay addoonkiisa uu ku salin iyo malaa'igta waxay tahay macnaheeda. saxuur dabdiska haddaan dabdinno iyo qaabka wax loo xarakeeyo, saxuur bifadxi siin la akriyo iyo suxuur siinka lama la saaro, suxuur iyo saxuur labadu way bannaanta, laakiin labada macnay kala leeyihin waxay tahay: asaxuur haddaad tiraahdi waa ismun lilma'kuuli, shayga la cunahaya eed ku saxuuranaysa magaciisa wey, yaa saxuur la yihahdaa. saxuur haddaad siinka fadxa saarti waxaad cunaysi magaciisa wey. haddaad caano cabaysi, haddaad raashin kale cunaysi,
waxaad cunaysid ku saxuuranaysid baa saxuur la yihahdaa. haddaa suxuur tiraahdina maaragtay oo lama saartina waa lilficli weeye, waa ficilka aad samaynaysa iyo dhaqdhaqaaq iyo cuntada aad cunaysa weeye yaa suxuur la dhahaa. suxuur baan cuni baad inaad tiraahdi, yani haddaad ficilkaada saxuur baan cuni baad leedaad u jeedi shaygii saxuurta la cunahayey. suxuur haddaad tirahdina waa ficilkaadii oo cunitaanka. sidaasay labdis marka labaduba saxuur baad dhihi kartaa, suxuurna baad dhihi kartaa. taasu mid weeye. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, cunitaankeedu suxuurtu waa barako wey. waxaa kaloo soo arooray asaxuuru kulluhu baraka. tan hadda waxaa noogu qoran akluhu baraka. waxaa riwaayad kale ah kulluhu baraka oo saxiix tarkiib wa tarhiib maarata uu kusoo saaray maarata almundiri. marka kulluhu haddaad tiraahdi iyo akluhu labaduba laba lafdi oo sugnaaday weye. suxuurta dhammaanteed waa barako ama cunadeedu waa barako wey, cuntadeedu. wuxuu nabigu yihi marnaba ha ka tegina falaa tadacuuh. waxaa nooloogu sheegay suxuurta cunadeedu inay barako tahay, yaan laga tegin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. haddaad wax kala weydaan walow an yajraca jurciga waxaa la yihahdaa maaragtay inuu kabashada milulfami afka muggii oo biyo ah ayaa la yihahdaa, inaad afka aad ku qaadato oo biyoah. walow axadkiin haba ka badaba jarca oo maa, jarcatan baad dhihi kartaa, jurcatanna waad dhihi kartaa. labaduba inaad jiimka fadxa saarti inaad lama saarti, labaduba waa kabasho wey, oo biyo la kabado ama daawo la kabado wixii lamidka. marka walow af muggii oo biyo aba aad ku suxuuratiya wax kale haddaad weyda marnaba ha ka tegina li. maxaa yeelay ilaahay iyo malaa'igtiisa ayaa ku salinaysa kuwa suxuurta. idan waa shay cadiima weeye. ibnu mundir raxmatullahi caleyh wuxuu soo naqlinayaa ijmaac weeyaan muslimiintu inay suxuurta sunno tahay oyna waajib ayn ahayn, oo soonkaada waxba u dhimayn haddaad ka tagtay, laakiin barako badan iyo fadaa'il badan baad ka tegaysaa. macnaheedu maxay tahay? ilaahay baa ku salinhaya mutasaxiriinta. waxaa la yihahdaa culamadu waxay dhahaan markii laisku soo ururiyo salaatullaahi calaa cabdihi waxaa loo jeedaa maarata hanaauhu calayhi wey. waxay shamlinaysaa hanaauhu calayhi maarata fi lmalaayi lacla, sheegitaanka uu ku sheegayo uu ku ammaanayo maarata fi lmalaayi lacla malaa'igta sare. waxaa kaloo noqon kartaa raxmatuhu, unaxariisashada uu u naxariisanayo maarata addoonka u naxariisanayo, wa tawfiiquhu fi dunya walaakhira, maarata naxariis u naxariisanayo iyo waafajin khayr waafajin adduunya aakhiraba. waxaa kaloo noqon karta makfira, dembi dhaaf. idan salaatullaahi calaa cabdihi hanaauhu calayhi cinda malaayi lacla, wa raxmatuhu wa tawfiiquhu fi dunya walaakhira wa makfiratuhu maaragtay lahu. intuba way noqonaysaa dembi dhaaf, raxmad, ammaan uu ammaanayo ku sheegaya malaa'igta markaa sare agtooda intaa uu ku sheegay. intaaba waxay noqon kartaa maaragtay salaada ilaahay calaa cabdihi. sidoo kale maaragtay salaatu lmalaa'ika waxaa looga dan leeyahay waxaa weye ducaauhum lahum bilmakfirati, ay ugu ducaynayaan dembi dhaaf. idan salaatulmalaa'ikati cala alcibaadi waxaa weeyaan adducaau lahum weye, waa duca ay u ducaynayaan addoomahaas u ducayn. macnaheedu marka muxuu noqonaya? bilmakfirati ugu ducaynayaan. macnaheedu maxay noqonaysaa marka? ilaahay baa maaragtay ku sheegahaya addoonkaa suxuurta malaa'igtiisa sare yuu ku agsheegi. sidoo kale ilaahay baa u naxariisanhaya, ilaahay baa u dembi dhaafahaya, ilaahay baa khayr oo dhan waafajinhaya. intaasoo dhan bay noqonaysaa. malaa'igtiisaa u ducaynaysa oo ilaahay bay u baryahayaan inuu ilaahay u dembi dhaafo. intaasoo waxaad helaysaa fadli ayaad helaysaa suxuurtaa suxuurata. sidoo kale waxay leeyihiin alimaam maaragtay sancaani markuu sharxaya xadiidka wuxuu leeyahay xadiidkan iyo culimo kaleba wuxuu daliil u yahay waa jeclaysiis la isjeclaysiinhayo suxuurta iyo ogeysiis la is ogeysiinhayo faa'iidada ay suxuurtu leedahay inay tahay ay ka mid tahay u kaalmaynayso qofka soonka u kaalmayn oo xoog u yeelaysaa. sidoo kale maxabatullaahi lifaacilihi, jacaylka ilaahay qofka uu jecel yahay, wa raxmatuhu lahu, naxariisu u naxariisanayo, wa ducaau lmalaa'ikati lahu bilmakfira. idan waxaad ku helaysaa maaragtay suxuurta aad suxuuratay ilaahay subxaana maaragtay soonka horta kaalmay kugu noqonaysaa, awood bay ku yeelaysaa. sidoo kale jacayl ilaahay baa kugu jeclaanhaya, kuguna naxariisanhaya, malaa'igtana way kuu ducaynaysaa. intaasoo faa'iido ayaa ikhwati filaahi suxuurtu ay leedahay. idan yaana yaraysanin suxuurta. waktiga la suxuuran doonay sayta waan ka hadli doonaa. yaan la yaraysanin. suxuurtu waa wax qiimo badan wey, barakay leedahay,
ما أرتي والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ورسحورته فإن في السحور بركة. سحورته بركة كتير حديثك في صحيح مسلم يغير كيف كتير أما صحيحين كباها ما أرتي سحورته بركة كتير النبي عليه الصلاة والسلام سحورته. إذا ما كإخوتي في الله أرنتها وأرن مهمة وي السحور سحورتي أكله عنتان كيسو بركة وبركة فلا تدعوها كتجنا ولو أن يجرع هبك بضى أحدكم أحدكين جرعة كبشر من ماء بياء فإن الله ألا وملائكته يصلون وحيكسلين هيان على المتصحرين كوا السحورتي إلهي ملائكته وكسلين هيان وإلهي سبحانه وتعالى ونحرسنا ويسالة ديس ونكو أمان هيا أنت ملايل على أبو كشيء هيا مارتي قفكاس قيمة وليهي وانا مارتي خير دمونا وافتشنا هيا ملائكتنا ودعين هيان وي إلهي سبحانه وتعالى هنقدقه كوا سحورتاس إلى لي أو سحورتا سي فضلك يا بركة وهلان هل مربع حديثك علينا يا الحديث 251 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتصحرين رواه أحمد والحديث صحيح والحديث حسن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.